maalinta dambana in kala la siin doona waa tartiib hal mar oo kaliya waxba lama wada gaaro wuxuu ahaa ehelka ardayda ka dhaxeeya inuu runtii si wanaagsanaado wadakir fa inna dhikra tanfa'u almu'miniin in macallinka laftiisa aqoontiisa uu kobciyo bahashan inuu ku jirno shaqadan inuu ku jirno macallinimada aynu balhaa bulshada ducaad baynu u nahay culimaynu u nahay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland ayaa maanta magaalada Burcad tababar muhiim ah ugu qabatay qaar ka mid ah macallimiinta madaarista Quraanka Kariimka iyo shaqaalaha wasaaradda ee gobolka Togdheer. Tababarkan ujeedkiisu ahaa in kor loo qaado xirfadaha barista Quraanka, tajwiidka iyo maamulka fasalka iyo in la mideeyo lana tayeeyo habka waxbarashada madaarista Quraanka ee gobolka Togdheer. Dhanka kale tababarkan waxa uu salka ku hayay in la xoojiyo doorka macallimiinta ee wacyigelinta bulshada iyo tarbiyadda ardayda. Tababarkan oo qayb weyn ka ah dadaalada lagu horumarinayo adeegyada diinta ee awqaafta ee heer gobol waxa ay leeyihiin ujeedooyin kala duwan oo si gaar ah u wajahaya labada dhinac ee waxbarashada iyo maamulka. waxaana tababarkani ka soo qayb galay qaar ka mid ah agaasimo waaxidyada wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka wasaaradda ee gobolka Togdheer. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay suduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Togdheer iyo qaar ka mid ah agaasimo waaxidyada wasaaradda ee heer qaran kuwaas oo faahfaahin ka bixiyay tababarkan iyo muhiimadda uu leeyahay. waxa ayaamahan shalay iyo maanta bay noo socday tababar mid ka mid ah oo ku saabsanaa kii shalay tabaxay oo 3 sheekh ay bixiyeen tababarkii a'immada iyo khudabada. maantana insha Allah ta'ala waxay noo gabagaboobaya tababarkii معلم القرآن بريه قرآنك وأي علماء إنه تشيدين دونان قار كم بدنا إنه تشيدين معلم القرآن أما معلمين تي علماء هل كان كسوء أجيب سنة فهمتي آدم نقوم هاد علينا أدم وزارة أوقافته قبل كاب إن شاء الله ما أنت المك الله سيو ما أنت دبنا إنك الله سين دونا وترتيب هل مرء كلي وحبل مو ذا جارو ولو توبرو قاب كوجون أحسن معلمكو أرضي قولنا دقميو أما هو حبريو أما قرآن كوجارسينيو أما معامل كيسجيو والد كيو محوها إهل كأرضي ذكر حياة إنه رتي سيونا سنادو وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين إسحسوسين برتي نجتهاي وزارته واختيارا ضمبه waxay ku dadaalaysaa sidii kor loogu qaadaha madaarista Quraanka Kariimka ha noqoto manhajkooda ha noqoto dirayskooda iyo madayntiisa ha noqoto Allahumma salli ala Muhammad kulamada noocana tababarada oo runtii kor u siyaadiyay in macallinka laftiisa aqoontiisa uu kobciyo bahashan inuu ku jirno shaqadan inuu ku jirno macallinimada aynu balhaa bulshada ducaad baynu u nahay culimaynu u nahay in la kordhiyo aqoonta marka ku duugan la kordhiyo meelaha aynu ka kordhina waxa kamid ah Quraanka Kariimka ah bal in akhriskiisa inta la farabadiyo lagu tadabburayo lagala soo baxo marka wasaa'isha marka wax loo tarbiyadeynaya marka sida ay noqonayso Quraanka Kariimka waa masdarka koowaad aynu ka qaadanayno masdarka labaadna ee aynu ka qaadanayno waa sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam masdarka saddexaad waa sirada rasuulkeena Maxamed kaleeyhi salaatu wassalaam. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishanka saab Burco. shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka bilaayan xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25%. hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya. shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday. hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah. macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay.